بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. مقعي وسار الشيخ يوسف. ما أنت موضوع عن كهاللينا وحويان حجابك قبل مسلمة. حجابك وعباده عبادة إله اللي قد أواذوه سبحانه وتعالى، وأنا واجب كمد واجباتك دينة إسلامك أي دتك كواجب يا شيء، خاصة دمرك وخاص بها حجابك. إله سبحانه وتعالى وحيد أسق أوفر يا النبي عليه الصلاة والسلام إنه هوينك سئي عرورتي سئي دمرك مسلمات قبل الله حرو مرضاس. الله سبحانه وتعالى وحيد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. نبي إلهي وحال يري هوينك هذا إيا قبله هذا الشيء إيا دمرك مسلمين تبا فر إني كركود حجابك أي كسي دايان. حجابك وحويان جلبابك ومرأ أستر أولوبة هي قبل مسلمة دا إني كركود كو أسترته. شروطه ليه السيدة محوقها صلاته أي شروطه ليه هاي صونك وشروطه ليه أصلاً الشروطه أن لقتك كرين ولما يسترمين هذه لقتك أيوليه هاي. waxaa ka mid ah xijaabku inuu yahay maro wada qarinaysa gabadha korkeeda. waxaa ka mid ah inuusan ahayn maro cariiri ah. hadduu maro cariiri uu kugu dhagan yahay kaas xijaab ma aha. waxaa ka mid ah in uunan khafiif jidhka gudihiisa laga arkayo inuusan ahayn. saatir ma aha oo maradii astur ma aha haddii qofka jidhkiisa laga dhex arkayo maradii. waxaa ka mid ah inuusan caraf badan iyo udgoon uusan lahayn. xijaabkii waad xidhatay oo si fiican baad isu asturtay, laakiin barfuun iyo waxaad iska buuxisay wax kale. haddii dembi un baad banaanka la aaday mooyeene maadan ajir kororsanin. waxaa ka mid ah inuusan asaga ahayn maro indhaha soo jiidanaysa, maro qurux badan oo aad iyo aad muxuu ahaa u dhalaalaysa oo markaad bulshada aad dhex maraysa aad ka soocan tahay hadday tahay taa xijaabka shuruudihiisa ma aysan buuxinin. waxaa kaloo ka mid ah maradu hadday dhusuq badan tahay oo aad raaf tahay oo aad muxuu ahaa si u silacsan tahayna xijaabka hadda waad ku ciyaartay iyada laftirkeeda ugu. qofka waxaa la rabaa bulshada uu ku jiro inuu ka mid yahay oonan ka soconayn baa la rabaa. waxaa ka mid ah alaa yakuuna libaasu shuhra, inuuna ahayn mara dad ay ku caanbaxeen oo la isku caanbixiyo inuuna ahayn. haddaad calanki tolato oo gabdhaha hadda calanka tolanayaan oo kale waa libaasu shuhra, wax wanaagsan ma aha. xijaabkana ma aysan ilaalinin. waxaa ka mid ah inayna ahayn mara ay raggu xidhaan. dumarka iyo ragga dhar kala duwan bay xidhaan. haddaad xidhato muxuu ahaa maradii ragga taas shuruudii xijaabka waad ka tagtay, waxba kuma tarayso xidhashadiisa ajirna kama helaysid, bale dembi baabad ku dhacaysa. nabi sallallahu alayhi wasallam wuuba lacnadayba dadka ragga isu ekeysiiyaan haweenka iyo haweenka ragga haweenka isu ekeysiiyaanba. marka walaalayaal waxa weeyaan xijaabka gabadha muslimada ah loogu talagalay inay xidhato waa mid loogu talagalay inay korkeeda ku asturto oo bulshadeedana si akhlaaq wanaagsani ay ku dhex noolaato. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri walaa yubdiina ziinatahunna, gabdhihii yaynan soo muujinin quruxdooda. dhar nadiif inaad xidhato laguma diidano, inaad labisato laguma diidano, laakiin dharka aad xidhanayso inay shuruudihii xijaabka buuxinayaan oo korkaada uu asturan yahay oo bulshada aad dhex socoto aada fidnaynaynin weeye mida lagaa rabo. oo qofkii aad ag martaba uunan ku sii fiirinaynin uuna ka qofkaas muxuu yahay uuna dhahaynin markuu ku ag marayo. gabadha muslimada waxaa looga baahan yahay in markii ay bulshada ku dhex nooshahay ay tilmaan inay u tahay iyo ku dayasho. ogow inta aad ilaahay xasuusan tahay eed ilaahay u cibaadaysanayso yuu ilaahay adigana kuu dhow yahay subxaanahu wa tacaala. haddii aad xijaabkii aad muxuu ahaa ilaaliso shuruudihiisa ood cibaado ka dhigato, cibaaduu kuu ahaanaya, ajir baad ka helaysaa, ilaahay subxaanahu wa tacaala baad ugu dhowaanaysaa. markaasaad muxuu ahaa laguna dhibi mahayo bulshada iyo sharkeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kaa qabanaya. sida uu aayad qur'aan alla subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn. xijaabkii gabadhi markay xidhato oo korkeeda oo dhan ay ku asturto bulshadii baa ku garanaysa oo la dhibi mahaya baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi. maxaa ka wanaagsan intaad is asturto ood iska asturto muxuu ahaa raggii aad iska asturto oodan bulshadii fidnaynin,
haddana haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu kugu xafido adduunka aakharana aad ajir ku heshood ilaahay subxaanahu watacaala aada ugu dhawaato. gabdhaha soomaaliyeed waxaan u dardaarmayaa inay ay xijaabkooda iyo asturkooda ay wanaajiyaan. xijaabka waxaa lagu faray inaad gurigaada ku labisato ood muxuu ahaa ninkaada u labisato ood gurigaada nadaafadiisa ilaaliso. bulshada markaad u baxaysana inaad ahaato qof wanaagsan oo wanaagiisa lagu daydo, gabadh asturan oo wanaageeda la yaqaano oo akhlaaqdeeda la yaqaano, suuradii wanaagsanayd iyo quruxdii qari baa lagu yiri. raggana kulli lagama wada qarinina, maxaarimtaada inaad u labisato ood gurigaada wanaajiso yaa ku faran. laakiin bulshada markaad dhex marayso qof wanaagsan oon dadka fidnaynin inaad ahaato yaa muxuu ahaa yaa iyadana muxuu ahaa alla subxaanahu watacaala uu ku farahayaa. sida suuratu nuur uu aayadda aada ilaahay subxaanahu watacaala uu ugu celceliyey gabdhaha sifaadkooda oo muxuu ahaa walaa yadribna biarjulihinna, kabadhaa dheer intaad xidhato inaad qubqub dhahdo iyo waxaasoo dhan waa nalaga nahiyey. maro khafiifa oon ama muxuu ahaa maro aan loogu talagelin xijaab inaad xijaab ka dhigato waa nalaga nahiyey. marka ilaahay subxaanahu watacaala aan kaga cabsanno xijaabka iyo inaan isku asturno si wanaagsan. qof walbow adigay ku faran tahay. waxaa kale oo ku faran bulshada aad la nooshahay inaad kala qayb qaadato, inaad muxuu ahaa aad tilmaan ugu noqoto ood gaadhsiiso oo adigu markaad is asturtaba walaashaana cadaabka ka ilaali. ilaahay subhanahu xadiiska nabi sallallahu alayhi wasallam uu sheegay gabdhihii aan jannada aan caraftooda heli doonin aysan ku darmanin ayadana adiga naftaada ka bilow ayakana ku xiji. marada aan jidhka asturinaw sallallahu alayhi wasallam markuu ka hadlay wuxuu yiri laba qaybood oo bini aadanka kamid ah hadda ma arku yiri way iman doonaan. maxaa kamid ahaa nisaa'un kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumiilaat, gabdho moodaya inay dhar qabaan laakiin qaawan. haddaad muxuu ahaa maro khafiifa xidhato ama maro kugu dhaganoo jidhkaada muujinaya xidhato ama shaabi sarwaal intaad xidhato aad banaanka u dhaqaaqdo, hadda ogow kuwaa unbaad ka mid tahay. nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri jannada riixdeeda ma heli doonaan buu yiri, galis ay galaan iska badaaye laa yajidna riixaha buu yiri, jannada udugeeda ma heli doonaan. jannada udgoonkeeda oo laga helo 70 dayrood meel loo socdo. ciyaadan billah, ilaahay ha naga ilaaliyo subxaanahu watacaala inaan muxuu ahaa cadaabkiisa gallo. marka walaalaha muslimaadka waxaan aad iyo aad ugula dardaarmaynaa oo naftayda iyo naftoodaba kula dardaarmaynaa gabadh walba hooyo ah inay nafteeda ka bilowdo wanaaga, caruurteeda ay ku xujisiiso, bulshada ay ku xujisiiso. gabadh yaroo gabadh oo soo kacaysa nafteeda yaynan fidnaynin muxuu ahaa bulshada ay ku jirto. ilaahay subxaanahu watacaala keligaa ka cabso, bulshadana kaga dhex cabso. qofkii ilaahay subxaanahu watacaala keligii ka cabsado bulshadana wuu kaga dhex cabsanaya. bal horta bilow inaad ilaahay gurigaada kaga dhex cabsato, markaa kadibna aad bulshada kaga dhex cabsato ood iska asturto ood muxuu ahaa gabadh tilmaaman oo wanaaga ku tilmaaman iyo xijaabka aad ahaato. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu cadaabkiisa nagu koriyo, inuu diintiisana nagu hanuuniyo subxaanahu watacaala. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.